بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد waxaan leeyahay asxaabtii dhegeysanaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa anigoo ah maxamuud ugaas oo maanta ay bishu tahay May 24 ka bixin doona faallo kooban siyaasadda deegaanka Soomaalida iyo qiimeyntii 6 bilood ee ugu dambeysay insha Allah daawasho wacan barnaamijkan qoban uu noqon doonaa waana musalsal joogto ah oo la soo gelin doono doodana waa la samayn doonaa inta ka qayb galaysa Facebook page-ka kacdoonka shacabka ay la soo xiriiri doontaa daawasho wacan sunada barnaamijku wuxuu koobnaanayaa arrimihii gaaska wax ku saabsan xuduudiyada Oromay Soomaali iyo xuduudiyada Itoobiya oo dhanba tirakoobka ka dhici lahaa wadanka maamulka magaalada Addis Ababa iyo Soomaalida degan ciidamadii oo nala iyo maamulka Jigjiga beelweynta caalamka ama international community iyo gobolkeena wadankeena dhexe iyo tala bixin intaas ku koobnaan doona qaybaan ku yartahay qaybana dhaqsaan u dhaafaya insha Allah gaaska gobolka waxa weeye maamulka dawladda deegaanka wuxuu ku ogaa haddaan isweydiino maamulka dawladda deegaanku xilligii dawladdii hore iyo xilligan dawladdan cusubba waxay ka ogaayeen ma jiro shirkada shisheeye iyo wasaaradda macdanta ee Itoobiya ma wax iska wadwatay barnaamijyo pipeline baa la hagaajiyey dhismayaal baa laga bilaabay Djibouti meeshii la marin lahaa ila galad shanay mal intaas qof oo shaqaale ah oo Itoobiyadii kala ah oo Soomaaliduna ay ku yartahay baa joogay talamayna weydiinin xageed wax wadaan mayna oranin waxay ka ogaayeen ma jiro okay markii oo laftu timid waxay bilowday ololo ay kaga bilowday dawladda shisheeyaha iyo wasaaradda maaliyadeed wasaaradda macdanta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha inay weydiiso oo dhahdo gaaskan laga sheekeynayo xageed wax la maraysa marka waxay dhacday in loo waramo halkaas wax marayaan kililku wax ma ka ogyahay maamulku wax ma ka ogyahay deegaankii degmadu wax ma ka ogyihiin yani talaabooyinkaas ay qaadeen bay waxay ku hakiyeen meelihii la marin lahaa gaaska iyo taladiisii iyo in guddi hadda la samayn doono ay ka mid noqon doonaan maamulka iyo mucaaradiyaduba ama ona laftuba marka arrimaha gaasku aad iyo aad xasaasi u yahay laakiin talaabadii ugu horeysay oo nalaf qaado bay ahayd Addis Ababa inay dhex fadhiisato wasaaradda maaliyadeed ee macdanta ay la hadasho ay weydiiso mandate la tiraahdo nasiiya hadda meesha marayaan waxa weeye guddiyo la samayn doonaa guddiyadaas wax ku yeelan doona maamulku iyo jabaduhu waxaana khasab noqon doonta in international law sidii loo marin lahaa la sameeyo in laga wada hadlo percentage lagu kala qaybsan lahaa hadduu waxni soo baxo in wax fara badan la iska weydiiyo oo talo uusan maamulka deegaanku ama jabaduhu dhulka halgamaya iyo degmooyinku ayna wax ku lahayn inaan la qaadin ayaa la isku afkartay wada hadalkuna ugu socdaa xuduudiyada muxuu ku ogaa muxuu ahaa guddiga loo dhisay guddi 20 qof ah oo hal nin una kale kaga jirin oo dawladdii abi way dhistay dawladda abina ay u faraboobamayeen niman Ormo ah oo xukunkii hore ka mid ahaa ayaa jiray 20 qof guddigaas ka koobnaa maamulka deegaanku hal kuma lahayn hal qof oo Soomaali ma jirin iyagu baa shiri jiray go'aan qaadan jiray intii marka oo laftu hadda ay active noqotay waxay warsatay meesha wax marayaan talaabooyinka xuduudeynta la bilaabi lahaa ama degmooyinka referendum hal weydiiyo ama xoog ba lagu jeexaa line cusub way joojiyeen guddigiina in dad lagu yeesho ugu yaraan dhowr qof ah ayaa lagu heshiiyey wada hadalkaasna Addis Ababa ka socdaa ilaa haddana maamulka Jigjiga intay yimaadeen guddiga wada hadalka xuduudeynta sameynaya wax in budo ay ku yeesheen ma jiro haye tirakoobkii maxaa jira census baa la qaaday guddiyaa la sameeyey Addis Ababa laga soo abaabulay dad baa la qoondeeyey baajeed baa la qoondeeyey maamulku ka mid buu ahaa guddiga tirakoobka ka mid ma ahayn abaabulkii fulintiiba ka mid ahaa waxa soo fuliyay degmadiiba intaan geeyay oo soo tirakooba
marka onlaf ay ku baraarugtay in tirakoob degmooyin la samayn doono dhulkii oo nabad ahayn heshiisyadii oo la fulinin deegaankii oo xiisada ka aloosan tahay tirakoobka la samayn karaya maxay tahay afkay furatay waana laga aqbalay weyna joojisay talada lagu maamuli doono tirakoobyadana waxbay ku yeelan doontaa maamulkuna waxba ku yeelan doonaa isagana halkaasaa lagu hakiyey maamulka magaalada Addis Ababa xuquuq Soomaalida degani kuma aynan lahayn Soomaali deegaankaana u dhalatay ha noqoto ama Soomaali weyn wax xuquuq ay ku lahaayeen ma jiro maamulka deegaankuna inay arrin u taala ay tahay maba ayna ogeyn maba ayna cidna usoo dirsanin mas-uulna kama aynan ahayn hal xafiis oo Addis Ababa ku yaala oo danaha dadka Soomaalida kala hadashay ma ayna jirin maamulka deegaanka onlaf waxay ka bedeshay in ay mayorka la shirto hoggaanadiisa la shirto councilka magaalada laga doorto ay la shirto ay go'aan qaadato in codbixin ka bixin karaan in dhul laga siiyo dadka Soomaalida ee maalgeliyaasha ah in ay teesara qaataan codka ay ka bixin karayaan marka baar u dhacayo doorashooyin ay gaarsiiyeen waana la saxay waana la heshiiyey waana lagu dhaqmay waxyaabahaas waa waxyaabooyin dacwooyin yar oo macnaheedu 6 bilood u dambeysay soo dhaafay qabsoomay markaan soo noqono ciidamada onlf iyo maamulka deegaanka waxaa horey loogu heshiiyey dhanka ciidamada muxuu ahaa hore waxaa loogu heshiiyey in adduunyadu ay ka wada qayb qaadato oo la sameeyo wax la yidhahdo peace building kadibna theory of change la tabico peace building iyo theory of change baan in yar macnaynayaa waxa weeye muxuu ahaa theory of change peace building waa dhibaatadan qaan gaadhay ee dulmiga ka ahalaasantay ee dhaqangadoonku ka dhacay ee qaabdhismeedyo badani halaabeen sidii intaasoo dhan dib loo soo celin lahaa oo loo raadin lahaa sababtii dulmigan iyo dagaalkan iyo xabaddan keentay dadkii ku tabaaloobay dhibaatadii gaadhay dhaqankii diintii iyo dhallinyaradii iyo wacyigelintoodii sidii wax looga bedeli lahaa adduunkao dhan qodob inuu ka qayb qaata ay tahay bay ahayd maxaa la dabaqi lahaa marka wax la yidhahdo theory of change baa la dabaqi lahaa theory of change muxuu ka kooban yahay waa isbeddel dhab ah sida loo abuuro muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay qiimeyn marka hore in la sameeyo dhibkan laga dhiidhinayo xaggee buu ka yimid kow communication joogto ah inuu jiro oo guddiyadaa la sameynaya waxaa qiimeynaya ay xidhiidh u yeeshaan ay wada shaqaynayaan oo iswargelinayaan wixii soo baxaa ay ninba nin kale ogeysiinayo guddigu si toos u wada shaqaynaya planning markaa waxay ka soo baxay communicationkaas uu noqdo qorsheyn la wada qorsheeyey organization in la habeeyo wixii oo laysku dubarido iyo development in lagu dhaqaaqay waxaa fulinteeda marka iyadoon tallaabooyinkaas oo dhan la qaadin iyadoon fundraising loo samayn iyadoo dowladda dhexe falkii u haysay barnaamijkan la gelinin iyadoo adduunyadii dhannaa ay lasoo abaabulay intaas safaaradood intaas hay'adood ka qaybgeli lahaa la abaabulin ayaa waxaa dhacay maamulkii jigjiga guddi bay iska dhisteen guddi magac u yaalan oo laftiba ay dhaheen ugu soo dara guddigii oo shir qabridaare u aaday oo ololeyntoodii caanka ahaa wada oo hawlgalkoodii barnaamijka abaabulka wada ayaa la daba maray oo la yidhi lacag baa loo qaybinaya kadibna waa lasii kala daayay qodobkaas isaga ihi maamulka jigjiga madaxweyne Mustafa Ajar ayaa hadday wax fiican dhacay iyo haddii wax xun dhacayba mas'uulka ah waayo adduunyadii iyo Addis Ababa maamuladii ka jiray iyo jabhadihii iyo dadkii mas'uuliyiinta ahay way ka wada wareersan yihiin maxaa dhacay bay leeyihiin ciidankii la xareeyey keliya lagama hadlaynin dhaqankoodii imiladoodii dhaawacoodii agoontoodii sidii farsamo gacmeed loo bari lahaa sidii loo rehabilitate gareyn lahaa si number loogu siin lahaa oo laftu ay og tahay numberka ay qaateen oo hadday ka maarmi waayaan waa ciidamadoodii ay dib ugu soo abaabuli lahaayeen sidii shacabkii dulmanaa oo idil dhibaatadoodii loo soo afjari lahaa dhibkan wuxuu ka yimid intii la wada darso sidii loo xallin lahaa dhibaatadii nooca ahayd ee salbalaadnayd intaasoo mashruuc ay ka koobnaan lahayd in wiil yar intii loo dhiibo uu yidhaahdo 270 milyan baan ku bixiyey oo weliba 270 milyan iskuuladii iyo caafimaadkii
u yaaleen la dhisi lahaa iyaga wax loogu dari lahaa in dib loo soo leexiyo maxaa ku dhacay fundraising hay'adihii maxaa ku dhacay dadweynaha diyaarkooda maxaa ku dhacay looga faa'iideysan waayey dowladdu dhexe lacagay u haysay inay dadkan dib u dejin loogu sameeyo maxaa looga faa'iideysan waayey maxaa loogu degdegay halkaas su'aalo badan oo maaragtay aan faalayn doonaa jira rabadaan kadib wayna iman doontaa in ifafaalayo la dhaho sababtu one week lacag yar intii loogu qaybiyey qaarkoodna la dulmiyey loo kala diray ma ona la faham mas-uulka mas-uulka dadkii qaybinayay lacagaha waan siinay in maxkamad la soo istaajiyo la weydiiyo lacagahan waxay ahaayeen horta wayna sheegeen oo lacagii iskuullada weeyaan bay dheheen ma xaq bay u lahayn lacagii iskuulla in la siiyo aw dunidii loo birman lahaa hay'adihii waaweynaa loo samayn lahaa wey adduunka sidoo kale markay dagaal ka soo noqdaan rehabilitation loo samaynayo labadaas theory ee peace building oo adduunyadoo dhan ay diyaar u tahay inay ka qayb gasho iyo theory of change baa la isku dabaqi lahaa oo dabaqaadii yaa hebel iyo hebel oo aan garanayo waqtigay miyi ka yimaadeen yaa madax looga dhayo barnaamijka sii kala daayay waa cajiib weeye marka waxyaabay dhacay 6 bilood bay ka mid ahaayeen ee qaatumad xumada fara badan keentay inkastoo dib looga noqon karayo oo weli talo fiican oo wax lagu maamulo ay bannaan bilooyinka caalamku markii nafta ay usoo dhuurtay Addis Ababa safaarad walba oo dan inaga lahayd ama power inagu lahayd way la shirtay heshiisana way wada galeen hase ahaatee heshiisyadaas waxay yara taaba galeen oo la dhaqan geliyey markii xisbiga Mustafa uu ka tirsan yahay uu damcayn la casilo oo la yiraahdo iscasil safaaradii oo dalbe ku gadaal xoreen xafiisyada Addis Ababa waaweynaa bay tageen oo nalaf waxay yiraahdeen isbedelkan dhacay ninkan ka mid weeye anaga raalli ka ah anaga wada dhisayna dalkii haddii la bedelo cawaaqib xumo fara badan baa iman meel walba way kaga qodbadeen waana laga yeelay saasaana lagu sii daayay jow maxay ballan qaadayeen markii beelweyntu barnaamijkii dib u dejinta loogu sameyn lahaa ciidamadii iyo dadkii tabaaloobay iyo dhaawacyadii iyo gabdhihii la kufsaday dadkii maxaabiista ahaa oo idil dhaqankii gadoomay xoolihii la dhoofin waayey wixii qaalo abuurin ahaa oo dhan barnaamijyo waaweyn oo billions of dollars ku fadhiila ayay qoondeynayeen oo diyaariyeen oo hay'adii usoo samaysta dheheen guddiyo mid ah oo maamulkii deegaanka iyo maamulka oo nala isla jiraan noo imaado oo barnaamijkan jaheeya oo formalize gareeya bay yidhahdeen maxaa ka hirgalay marka waxaad moodaan jirown maamulku inuu tusaa ugu meereysanayo wax istaba marinayo aad moodo inay ku fulan tahay muddadaas aynay hadhay maxaad samayn doontaan oona laf baad la tartamaysaan miyaad ka qaaday wax aan la fahmi karaynin fafaaladeeda waan jeli doonaa ayaa meesha ka socda talo maxaan ku bixinayaa marka talo dhanka maamulka deegaanka waxaan leeyahay maamulka deegaanku processkii socday ee ONLF ay kusoo gashay fari kama qodno mana bilaabanin waadna kala tuurteen wixii ka yimaadana caawaaq xumadeeda idinkaas kale ciidanka $2,000 la siiyey ama qaarkood 500 la siiyey ee lagu sii daayay dalka in la dhaqan celinin in ciidankii usoo halgamayeen aan ka mid noqonin ka amar qaadanin nin ka mid ah intuu qori qaatay bari nin kale oo ajnabi ama Ethiopian kale ah banaanka la istaago out of the blue waxa la dhihi doonaa oo nalaf baa dhibaatada geysatay oo nalaf meena geysanin maamulka sii kala daayay ee subaga afka u mariyay ayaa waxaan sameeyay barnaamijkii lagu soo dagay ee lagu rehabilitate gareyn lahaa dalka oo dhan ma una ahayn inta loo qaybiyay in la sii kala daayo meesha aad ku sii kala dayseen isaad u soo ururin doontaan baa tallaabo ka qaadi doontaan waxay la tahay haddadan raadka lagu sii kala daayay askarta raadiya waxa loo qaybiyay inuu dhab yahay iyo inuuna dhab ahayn raadiya lacagahan meesha loogu talagalay ku bixi lahaayeen line item yar oo ka mid ah wasaaradda waxbarashada kharashkeeda ayaan la bedeli karaynin iskuulla dhan iyo caafimaad dhan sida loogu bedelay ciidan loogu qaybiyey idinkan laydinka rabaa talooyinkaas muddaad haysataan muddo yar waa idin qaban doonaa haddaanu shacabkii nahay kasoo jawaaba oo istaba qabta oo dhib noocaa ah oo fara badanna ha geysanina kana tanaasula dhaqamada ay leeyihiin amxaarada oo kaleeto waa dad Ethiopian oo hadda wax badan aad ku jirtid malihi laakiin amxaara waxay aaminsan tahay in Ethiopia ay lahaayeen luqadda amxaariguna ay tahay muqaddas
mustafa waxyaabaha hadda uu ku hadaaqay ee uu sheegayo mar walba ee joornaalada siinayana waxaa ka mid ah in lagu qaybsado qoomiyado wax oo federalism ayuu duraya wuxuu duraya ciidamada hantida keliya aanu lahayn wuxuu ahaa ciidan buu ahaa ciidanka dhahayna dhibaateeyo si khalad ah loo abuuro maanta hanti weeye lasii kala daayay ayuu ku riyoonaya cawaaqib xumada ay leedahay saa ka jawaabi doona wuxuu ku riyoonayaa inuu onalaf guddi farsamo oo la shaqeeyo oo wixii lagu heshiiyey aan dib u baadhin oon bilaabin inuu sameeyo ayay u badan tahay taa waan uga digaynaa maamulka deegaanka okay onalaf waxaan uga digaynaa afkaa qori laga gelgelinaya onalaf say ku dagaalami lahayd oo hawdka u geli lahayd baa laga shaqaynaya guddiyo odayaal oo fara badan oo degmo walba ha dhisto talada ay odayaashaasi siinayaan waa talo nabadgelyo oo laga digtoonaanayo degdeg dambe in la sameeyo oo laga digtoonaanayo waxa maamulkani wado in la horboodo oo meesha ay rabaan inay ugu dhuftaan laga digtoonaado ilaa ay haddana way ka digtoonaanan yihiin oo ma inay ku degdegin inay ay carqaladeeyaan inay dacaydayaan wax dacaayad u eg oo cid onalaf ka soo jeeday ay fidisay barnaamijkana ugu horeeya ilaa ay hadda inta Addis-Ababa joogaan mar walba way difaacayeen barnaamijkaas waa baraarujin inuu deegaanka khaladaadka nooca ah uu sameeyey iyo warqabka uu kaba warqabin gaaskii iyo tirakoobkii iyo Addis-Ababa iyo xuduudiyadii onalaf u dhaqaajinaysay u lumlaado ogaada Addis-Ababa inay wax ka jiraan deegaanka wuxuu ku hayay shirarka qabiilooyinka habeen walba lala geliyana ayna ahayn shaqadiisu ee wasaaradiina xorriyad siiyo inay hawlahooda qabsadaan siyaasaddeena isagu u soo noqday guddi xoog leh oo rag wax garanaya uu meesha geliyo onalaf marka way taxadarka ku wadaan dagaal iyo ku degdegin dambe shacab weynaha ku soo haray shacab weynuhu onalaf iyo deegaanku waa isku dadkiini qolana maamulkii jiray bay maamulaysaa inkastoo xisbiga ka soo jeedaan aynu ogeyn markii hore haddana cafis guud baa iska dhacay dadkii waa wada mid waa walaalo iyagoon u kala hiilinaynin sida xaq uu yahay meesha khaldan ha taabtaan ha sheegaan ha u dacwoodaan ha hor yimaadaan iyagoon degmadoodii iyo qabiil hebel maxaana loo siiyey inaa odhanaynin aragtida dheer ee xorriyad raadinta ha ku saleeyaan mabda'yadooda oo kii gar leh gar ha siiyaan kaan gar lahayna iyana gar siinin shacabka waxaa ugu horreeya talada la siinayo nimankii la odhan jiray ganacsatada qandaraaslayaasha ahaa ee xogaa ku dambeeyeen waxaa ku jira aqoon-yahanka waxaa ku jira culimaadudiinka waxaa ku jira odayaasha beelaha intaba waxaan leeyahay maantay qabasho leedahay gacan loo baahan yahay ninka qandaraaslaya hantiila ah hantida uu haysto inta isbedelkani dhacayo ee waxaan urubkii uu kahana qaadayo onalaf iyo deegaanka oo laysku qodeeyo isku kaco onalaf dagaal dambe gasho siduu kaga hortagi lahaa ha shaqeeyo ha huro hadda naftiisa iyo kharashkiisa iyo gaariyaashiisa iyo markii shirar u baahan yihiin ha hogaamiyo waxaa laga yaabaa aragti ah deegaanku inuu istusay onalaf lacagna lamayna imanin xafiisyadii dibaddana waa iska soo afshartay dhaqaale ay gudihii ka urursatana ma ay lahaa iyadaa sheeqi doonte oo dagaal iskaba geli aan maaragtay u kaadino oo aan sidaa ku qulaanquli raacin oo kolba wiil yar guddi uu ka mid yahay hebel baa go-aanka inii gaadhay ha la yidhaahdo ganacsatadu way ka hortagi karaan arrinta shirarka onalaf u baahan yihiin inay wax ka qabtaan waa muhiim gaadiidka u baahan yihiin inay wax ka siiyaan waa muhiim aqoon-yahanku xaqa iyo baadilka ha ka kala hadlaan iyana meel fadhiya Addis-Ababa aqoon-yahan badan baa fadhiya oo dhulka wax ku bartay ama dibadaha wax ku bartay iyana aamusin duka cambaar leh laga dhigi maayo hadday runta sheegaan runta ha sheegaan halkanka ha ka qayb galaan wixii aragtidooda ha gudbiyaan si positive ha u gudbiyaan